بسم الله الرحمن الرحيم macaamiisheena sharafta leh ee ku xiran shirkadda Dallas Real Estate walaalayaal soo dhawaada gacmo furan iyo adeeg hufan oo idin raali geliya haddaba walaalayaal sidaan nooga barateenba waxaa maanta mar kale idin soo gudbinaynaa guri iib ah ee walaalayaal ku soo dhawaada daawasho wacan ka faa'iideysi wacan walaalayaal waxaa iib ah gurigan ee hadda kaamiradu ay hayso waa gurigaas sarta ah ee albaabka kafeega ah leh iyo sidoo kale qolka irid banaanka ah ee boorka uu ku dhagsan yahay walaalayaal gurigan wuxuu ku yaalaa meel aad iyo aad u camiran xaafad ka mid ah xaafadaha ugu shidan magaalada Muqdisho walaalayaal guriga xagga dhismihiisa waa uu fiican yahay waa dhismo tayo leh oo xoogan waa guri hore ka degaysid oo dhismo iyo dayactir iyo aan kaaga baahnayn soo dhawaada walaalayaal wada ahaan marka la dhahanay wadada gurigan beeca hormarto waa wada weyn oo waasac ah wadada waa aragtaan dhinacan kalena waa aadaa waxaa labada dhinac ka xigo guriyo laba jilyaal ah oo wadooyin ay ka soo dhacayaan guud ahaan xaafadan wadooyinkeedana waa ay fiican yihiin xaafadan waxaa caan ku tahay wadooyin waaweyn oo waasac ah insha Allah sida la filaayana wadooyinka xaafadan iyo guud ahaan degmadan waqtiyada dhow waxaa la rajeynayaa in interlog ay isku wada bedelaan qaybo badan oo ka mid ah interlog waaba la saaray xaafadda sida aragtaan waxaa ku badan guryaha dabaqyada ah marka soo dhawaada walaalayaal waxaan guda gelayaa xogta gurigan iibka ah oo dhameystiran insha Allah tacaala ka bogasho wacan walaalayaal haddii aan ku bilaabo meesha uu ku yaalo gurigan iibka ah waxa uu ku yaalaa magaalada Muqdishona wuxuu uga sii yaalaa degmada Shibis si gaar ah walaalayaal wuxuu degmada Shibis uga sii yaalaa xaafadda Beexaani waa wada garanaysaan waxay ka mid tahay xaafadaha waaweyn ee degmada Shibis waa xaafad ka mid ah xaafadaha loogu jecel yahay sidoo kale waa xaafad qadiim ah oo xaafadihii hore ee magaalada Muqdisho ka mid ah walaalayaal guriga wuxuu ku dhow yahay laamiga Beexaani ama eriyada isgoyska Beexaani sidoo kale dhinaca waqooyi marka laga aado waxaa lagu tagayaa laamiga kale ee weyn ee loo yaqaan laamiga Nasiib Buundo waxaa sidoo kale ku dhow suuqi Shibis dhinaca galbeed waxaa ka xigo maxfalka iyo xaafadahaas oo marka dambe lagu tagayo laamiga ka yimaada isgoyska Manabolio iyo isku xiro isgoyska Juba walaalayaal haddii aan u gudbo ama aan ka hadlo dhanka cabirka gurigan iibka ah wuxuu ku fadhiyaa 12 mitir lagu dhuftay 6 ama saay bardoodisho hadba sida u taqaanid waa cabir macquul ah waxaa ka dhisan sida muuqaalka ka aragtaan guri hal famil ku filan xaafadan cabirkeeda walaalayaal waa 12 lagu dhuftay 12 guriyaha ku dhagan hadda waa cabirkaas balse asaga waa nus booska hadda qaabkaas oo kale ayuu noqonayaa ama gurigaas dabaqa ah oo kale cabirka 12 ka ah waa cabir macquul ah ilaa xad gurigan iibka ah walaalayaal haddii aan ka hadlo lacagta lagu rabo waxaa lagu rabaa oo kaliya 75,000 oo doolarka Mareykanka ah oo isku dhamaad ah waana macal dalaal iyo heshiis waxaa la yiraahdaa beec meesha ka bilowday kuma dhamaado walaalayaal qiimaha waxaa ka furan gorgoro wixii macquul ah waa la idinka dhimayaa insha Allah tacaala walaalayaal haddii aad maqan tihiin dhanka WhatsApp-ka waad naga soo wici kartaan faahfaahin dheeri ah ayaa idinka sii siineynaa insha Allah tacaala kadibna qof wakiil ah ayaa soo dirsanaysaan marka guriga la idin soo arko ayaa beeca ka heshiineynaa insha Allah tacaala mar walba waxaa fiican aragtida isha ama tooska ah marka soo dhawaada anagana diyaar ayaa u nahay inaan soo tusino
haddii aad ku qanacdaanna hawsha sida ugu quruxda badan leh idinkugu dhammayno. Walaalayaal, haddii aan u gudbo ama aan ka hadlo dhanka wadooyinka iyo jihada, walaalayaal gurigan iibka ah waa hal jidle sida muuqaalkaba ka aragtaan. wadadan weyn ayaa hormarto, saddexda dhinac ee kalena waxaa ka xiga guryo ay dad kale leeyihiin. haddii aan walaalayaal ka hadlo dhanka jihada, gurigan iibka ah wuxuu u jeedaa dhanka koonfureed, waa hal jidle koonfur ujeed ah. gurigan villada ah ayuu toos uga soo horjeedaa. walaalayaal, koonfur ujeedka waa la jecel yahay maxaa yeelay wuxuu toos ugu jeedaa dhanka badda, sidoo kalena guriga waxa uu saaran yahay meel taag ah. sidaas awgeed mar walbo guriga cimiladiisa way fiicnaanaysaa, hawo iyo leer qabow ayuu xilli walbo leeyahay. walaalayaal, haddii aan u gudbo xagga dukumiintiga iyo sharciga, gurigan iibka waxa uu leeyahay dukumiinti saxan oo dhammaystiran, kaasoo ah rasiid sabarloog original ah. waa dukumiintiyadii la bixiyay 1991 ka hor, wax ka dhimanna ma laha. walaalayaal, haddii aan nahay shirkadda Dallis Real Estate, waxaa diyaar u nahay inaan dukumiintiga idiin geyno nootaayada aad dalbataan si la idinkaga hubiyo sax ahaanshaha dukumiintiga insha Allahu tacaala. walaalayaal, haddii aad dhul ama guri beec ah ku leedihiin xaafadan iyo dhammaan xaafadaha iyo degmooyinka gobolka Banaadir, nala soo xiriira. sidaan oo kale ayaan idinkugu beecgeynaynaa insha Allahu tacaala. sidoo kale haddii aad dhul ama guri ka rabtaan xaafadan iyo dhammaan xaafadaha iyo degmooyinka gobolka Banaadir, sidoo kale nala soo xiriira, waa idin helaynaa insha Allahu tacaala. dhulalka iyo guryaha ahayna way ka badan yihiin kuwa aan soo gelino, marka nala soo xiriira qaabka aad wax u rabtaan ayaan idinkugu adeegaynaa insha Allahu tacaala si hufan oo daacadnimo ay ku jirto. shirkadda Dallis astaanteeda waa hufnaan iyo qancinta macaamiisha. walaalayaal, ugu dambeyntii waad ku mahadsantihiin daawashada muuqaalka iyo ku xirnaanshaha shirkadda Dallis Real Estate. walaalayaal, waxaan si sharaf leh idinkaga codsanaynaa inaad kanaalka subscribe noo saartaan, gambaleelkana aad furataan idinkoo mahadsan, si aad ula socotaan muuqaalada aan mustaqbalka soo gelinayno insha Allahu tacaala. sidoo kalena Facebooka iyo TikToka follow naga soo dhaha. waa mahadsantihiin mar kale. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.